bay u dhib badan tahay inaad xusuusataa in wax 10 sano ku dhow waa wax maraaxilkeeda la runtii laakiin ilaa imka de iskoor bay yihiin reerkan iyo waxaan isdhaahdaa nin sidii ku jecelo sidii isu jarjaray la adaragto ما شاء الله horta maxamuud iyo farax qisadoodii iyo xiriirkooda dawaan iska garanayna horta xaafadeena inuu deganay waxay ahayd xaafada dadka degan oo qalbi wanaagsan yihiin laakiin gabigeenu yaraan lagu soo wada degay macnaha dadkii uu waaweynaa markii xaafada degay lama yaqiinsan karno oo dhalinyarada markaa uu ahaa laakiin kacaanadiina mooga dhexdiisa ku kacaamay waa in is wada waji garanaysa xiriir in laba qof xiriirkooda la ogaadaana sir aad u weyn bahay hebel iyo hebel wada Pakistan dheerka iskuulka lagu qori jiray marka sir weyn oo markaa anigu hayeebahay in maxamuud iyo farax xiriir leeyihiin xaaladda markaynu tagno iyo in 9 sano ka hor aynu guurno sir weyn oo siraha aan adduunka haya kamida ayay ahayd in maxamuud iyo farax xiriir leeyihiin hadda wax iska caadi oo simple maanta iyo shalay intii ka horeysayba maxamuud xiriirkiisa iyo farax xiriirkooda markii aan ogaaday waxay sheegtay gabadh imka wadanka ka tagtay alla maxaan abaalu hayay sir weyn oo ayay ku sheegtay moogta in labada qof isku fiican yihiin oo dabatana aniguna markaas sheekada bilaabay geed aniga farabaas ku hayo marka la yaryar yahay baasho aad baaciib u tahay ayaa maxamuud iyo farax arinkoodan soo cusboonaadeen oo xiriirkooda maqashiisnaa ayaa la yiri farax waa la guursanayaa dabeetana farax baan u yimid oo meel baan iska fadhiisanay sadaqad horteedii geed dhexdiisa oo guurka iyo arin weyn oo muhiim ah sidii wax Soomaaliland la itiraafay ayaa u ahay dabeetana waxa dhacday maxamuud baan inaan markaa waaniga indila sheekada farabaas ku hay inaan markaa isnaqaanay ayaa yiri arrin baa doonayna inaan nala fudaydiso markiiba halkaasano feedback dabeetana balana kii maxamed aaba kadinka fadhiistay walaalkay dicin laayalku jooga baa ku nabad yeelay markuu walaalka dibadda fadhiyo ma soo bixi kartidba war waagayna oga dhiga markaas aan arrin baa dhacday barqan dabeetana ugu tagay guriga waraaba bariyaale maxaa haysanay waramo khayro alxamdulillah halkii baan sheekadii dabka saaray waxa la reerkaas aan dhismay waxa loo baahan yahay si aanu ninkan noo dhiman reerkaasina u dhismin balkaalo ka shaqee arrintan aad u culus tahay qasinan xiriirkooda ogaaba arrin weyn oo culus oo macquul ahayd dabeetana waan ka yimid oo waaniga farax ku soo noqday alla faraxay walaa inankii ifrax wala ifrax ma tir wala aan baynankii waan jecelahay maxaynu yeelnaa waxa la waxaan yeelno waan garan weyn dhowr hablood kale iyaguna xaafadaaba noo yimid oo arrinkii maanaan u tuurin iyaga runtii halkii baanu iska arrintii de meel alla meel loo ciiriyo maxamuudna deynuna telefoonka baasin markaa ugu cusba mar walba oo inta soo garaacna halkeeyii bartee iyo sidee si alla si aanu xaaladii u loodino ayaanu garan weynay runtii markaas maxamuud maalmaha kamida emotionally uu xaaladoobay